maxay tahay sababta team 27 ay uga tageen wiilkan lagu magacaabo Saki Soomaali waa su'aasha ugu badan ee baraha bulshada la iska weydiinayo team 27 oo madax u yahay Asad Xaajiyow ayaa waxay u baxeen safar dalxiis oo ay ku aadeen magaalo lagu magacaabo Lankaawi oo loo dalxiis tago sabab la xiriirta dabaaldega 2 milyan ah ee Asad Xaajiyow gaaray waxaana safarkaasi u baxay oo isku raacay 10 qofood oo team 27 ka wada tirsan laakiin waxa laga tagay oo aan kamid ahayn shakhsiyaadkii safarkaas galay wiilkan YouTuber-ka ee lagu magacaabo Saki Soomaali inta wixii ka dambeeyana waxa dhacday in dadku ay isweydiiyaan sababta wiilkan looga tagay Asad Xaajiyow iyo teamkiisuna waxa ay la kulmeen cambaarayn iyo in la yiraahdo waxa tiin dad cunsuriyiin ah Asadna waxa lagu sheegay inuu yahay nin teamka dhexdiisa kala jecel oo u kala eexda haddaba markii halkaas marayso waxaan kula wadaagayaa qodobo ee sabab keeni kara in wiilkan laga tago oo uu ka haro safarkan dalxiiska ah ee team 27 ay aadeen midda koowaad soo ma dhici karto in Saki Soomaali uusan ka tirsanayn ama uusan kamid ahayn kooxdan YouTuberada ah ee lagu magacaabo team 27 safarkana uu ahaa mid loogu tala galay team 27 oo kali ah waa macquul midaasi oo ay dhici kartaa in wiilkan uu ahaa kaliya nin saaxiibkooda oo marmarka qaar wax la duubta iyaguna ay wax la duubaan inta ay arintan socotana mar asagoo live ku jira ayaa la weydiiyay su'aal ah maxaa ka jira waxyaabaha baraha bulshada la isla dhaxmarayo oo ah in team 27 ay adiga si ku xumayna kaaga tageen waxaana afkiisa ka sheegay in waxaas la sheegayo aysan waxba ka jirin oo ay tahay been iyo isku diraale ay dadka baraha bulshada ku jira boonbooninayaan midda labaad oo ayaduna keeni karta in wiilkan laga tago oo uu safarkaas wax ka raacin waxa dhici karta in isaguba uusan doonin inuu safar galo oo uu dalxiis aado hadii uu isagu xorriyadiisa ku joogay oo markii raggii ay wax wada duuba jireen ay baxeen uusan raacin macnaheedu ma noqonayso in si ku xumayn looga tagay isagoo safarkaas raba sidoo kale dadka teamka wax la duubi jiray oo aan safarkaas wax ka bixin ama aan lagu arkin wajiyadooda kaligiis ma ahan oo waa ay badan yihiin hadii aad tahay qof daawo jiray muuqaaladoodana waxaad arkaysaa wiilal iyo gabdho badan oo in ka badan Saki Soomaali intuu wax la duubay Asad Xaajiyow wax la duubay oo la shaqeyn jiray in laga tagay safarkaas oo aysan kamid ahayn waana sabab kale oo la dhihi karo wiilkan loogama tagin nacayb isaga loo qabo waxaana tusaale u soo qaadanaya aniga iyo ragga saaxiibaday ah waxaan inta badan wada shaqeynaa oo aan hal team oo kale isla nahay aniga Abwaan Camaari iyo Abwaan Sharlaawe waxaana dhacda marar badan in hal qof ama laba qof oo dhaxdeena ah ay kaligood iska safraan qofka kalena oo isagu si xorriyadiisa ah iskaga haro ama uu isaga joogo sida darteed lama dhihi karo qofka haray qaabka xumayn ayaa looga tagay sheekada wiilkaana waxa soo gabagabeynaya in isagu afkiisa uu ka sheegay in aysan wax dagaal ah jirin waxyaabaha la isla dhaxmaraya baraha bulshadana ay been abuur iyo isku dir yihiin waayahay halka markii ay marayso waayihii ugu dambeeyay gaar ahaan bishan waxa aad u soo batay waxyaabaha xumaanta ah ee aadka loogu buunbuuniyo baraha bulshada gaar ahaan TikTok oo arintan hada socota waxa ay la mid tahay arintii kale ee hada soo dhamaatay oo dadka badan loo xirxirayay taasoo ahayd yaa Muqdisho iska leh oo dad baraha bulshada ku jira oo waxyaabahaas magac ku raadiya ay markii horeba soo aas-aaseen kadibna xumaantoodii ay qaraxday oo ay dadkii dhammaan ku faaftay buuq iyo dagaal badan oo ka dhashay arintan hada socotana waa midii oo kale oo isla dadkii ayaa wada oo dab ku horinaya qof kasta oo faahsan sida ay baraha bulshada u shaqeeyaan iyo qaabka loo isticmaalo arintan halka ay ka timid iyo sida ay u socoto waa u fahmi karaa marka adiga ayay ku jirtaa inay ku saameeyaan waxyaabahan daraamaha iyo been abuurka ah oo aad qof aadan aqoon u lahayn aad nacayb ugu qaado iyo inaad saxda fahanto oo aad garaadkaaga ka socoto qofka lagu dhagan yahay oo lagu sheegayo inuu qof xun yahay oo teamka dhexdiisa u kala eexanayana waa Asad Xaajiyow Asad Xaajiyowna waan wada naqaanaa weligiis lama arkin isagoo qof ku dhagan ama dad islaameed dulminaya oo waa nin afgaaban iska shaqaysanaya fahmay sida YouTube-ka looga xamaasho kana dhaxbaxay qiyaaliga iyo daraamaha ay dad badan ku nool yihiin waana nin isku wata asxaabtiisa ee dadka aad aragtay ee tira inta la eg sababta loo durayo oo lagu sheegayo inuu nin xun yahana waxa loo qoorilayaa heerka uu maanta joogo oo waxa markasta ku dhagani waa dad doonaya in isaga la tartamaan laakiin gaari waayay markii aad tahay qof isagu isku tashtana waxa markasta lagu sameeyaa in sawir qaldan lagaga bixiyo bulshada ku daawata ee dadka kugu xiran laakiin taa ma dhacayso oo hadda waa la ilbaxay qof walbaana waa u fahansan yahay sida ay wax u socdaan aad iyo mahadsantihiin waxa idin leeyahay soo dhawaada wassalaamu calaykum inta kadib hadii aad tahay qof qurbaha ku nool oo aad doonaysid qur'aan online ah waxa aad ka heli kartaa dugsiga Makka Islamic Online oo aad ka baran kartid xifdinta quraanka tafsiirka ahadiista iyo ducooyinka kale ee diiniga ah waxaana dugsigan online ka wax ka baran kara caruurta iyo dadka waaweyn waliba hab casri ah oo aad iyo aad loo hormariyay waxaana kala xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda oo aad ka heli doonto macalinka dugsiga aad iyo aad u mahadsantahay waxaana ku leeyahay soo dhawaaw wassalaamu calaykum